waxaa joogta dawlad taani ah oo kaligiistaliya annagu manin kaligiistaliya manin rabitaankiinaan ku nimid aniga waa isku day in mar labaad la ii doorto la ima dooran haddana mar kale inaan isku dayan diyaar u ahay mar saddexaad inaan isku sii dayan diyaar u ahay taas waa halkeeda laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego in la indooran waayo ma aha muxuu ahaaye arrinta oo muhiimka ah waxaa muhiimka waxay tahay inaan ahay madaxweynihii labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliya ee teeramkiisa dhamaystay madaxweynihii labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliya ee baarlamaanka la doortay ka shaqeeyay inuu asna teeramkiisa dhamaysto oo ku muteysta maanta xildhibaan abadiya inuu baarlamaanka ahaado laakiin dadka Soomaaliyeed anaa ka shaqeeyay waxaa mar walba la igu riixayo oo dad badan ay rabeen in extension la sameeyo oo 2 sano lagu sii daro dawladda anaa diidanay welina waa diidanahay dhaqanka dawladnimada inuu hagaagaan rabnaa teeramka maalintii fiir 3 waxyaabooda muhiim ah qofka mas'uulka la dooranayo si sharci inuu xafiiska ku yimaado inta uu joogo xafiiskana inuu si sharci ku maamulo maalinta waqtigiisa dhamaadana si sharci inuu uga tago ama ku joogo haddii la idooro lahaay sifa sharci ah la igu doorto waa joogi lahaa haddii la idooro waayana sifa sharci aan uga tagay kii la doortay aan muxuu ay soo dhaweeyaan u dhiib dhaqanka dawladnimada inuu socdo la dhaqaajo u baahan waa kaasa marka aniga sharaf iyo karaamo iyo haybaday ii tahay inaan madaxweynihii labaad ee jamhuuriyadda oo intaas suurta geliya inaan ahay xil wareeji oo madaxweyne kale oo la doortay ku wareeji inaan ahaadaa ka weyn in la idooro waay waxaa joogta dawlad taani ah oo kaligiistaliya annagu manin kaligiistaliya manin rabitaankiinaan ku nimid markaan imaanayna saad noo soo dhaweyseen waa ogeedeen markiina la doorteen waana taageerteen haddana ummadda Soomaaliyeed waana taageersan yihiin maxaa yeelay ummadda Soomaaliyeed waana taageersan yihiin maxaa yeelay dawladdan dawlad fiican weeye aan madaxweynaha ka ahay dawlad nadiif ah weeye dawlad ammaanada ilaalisa weeye aan tuuga ahayn dawlad cadaaladda ku dadaasha weeye dawlad aan qabyaalad iyo qabiil aqoon weeye dal burbursan muddo 30 sano ah yaan ka shaqeynaynaa inaan sharafkiisa iyo karaamadiisa soo celinno 4 qof iyo 10 qof iyo 20 qof oo dana shakhsi wata oo argagixisada ay ku soo dhex dhuumanayaan magac naga hadleen maayaan gacan biras kaga qabanaynaa ha u dulqaadanina hana yeelina in la ku soo dhex dhuunto cadawga waa la dagaalaynaa bannaanka ciidamada qalabka sida ay kula dagaalamayaan goobo iyo aagaan ka qabsanay waana sii eryeynaa waana ku daba jirnaa ma aha intay na soo daba maraan oo dadka isku dhex qariyaan oo ay ka faa'iideystaan arrintan oo kale